السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalyaal maanta waxaa idiin soo gudbin doonaa xikmadihii ugu xiisaha badnaa haddaba daawasho wacan sabarku ma aha ilaa waqtiga aad sugi karto balse waa sida wanaagsan aad u dhaqmi karto inta aad sugayso marnaba ha is oran way kaa daaheen wixii aad sugaysay ama weligaa ma helaysid dadka qaarkii marnaba ma lunto quruxdooda si kasta ay u wanaadaan ama da'na ugu darsanto sababtoo ah quruxdooda marnaba ma ahayn wejiga waxay ahayd qalbiga ma joojin karno dhibaato inay dhinacayna soo aado oo noo timaado laakiin waxaan awoodi karnaa in aanan siin dhibaatada kursi ay ku fadhiisato oo nanagul sii joogto haddii ukuntu bannaanka laga jebiyo nolosheedii way dhammaataa haddii gudaha laga jebiyo noloshu way u bilaabataa oo deegaagad yar baa dhalata noloshaada iyo wax kastoo sareeya waxay ka bilowdaan gudaha marnaba ha sugin wax bannaanka kaaga yimaada in ay ku beddelaan ama farxad kuu keenaan guusha dadka kale ma aha adiga guuldaradaada ama fashilkaaga marnaba ha ka xumaan qof kale guul uu gaaray isdiyaarin dadaal badan doonid joogto ah dulqaad iyo duco ayaa inta badan ah sababaha guusha feenuustu ma hadasho waxay isku soo bandhigtaa iftiinkeeda kuwa guulaystay marnaba ma aha inay naftooda buunbuuniyaan balse waxqabadkooda ayaa la rabaa inuu soo bandhigo u hadlo dulqaad yari iyo degdeg waa xididka dhibaatadaada ma qasbi kartid nolosha inay ku siiso jawaabo ama sidaad rabto wax kasta inay u dhacaan waa inaad ogaataa in culays kasta fudud ka dambeeyo waa in aad aqbaashaa in wax kasta waqti qaataan daacad u noqon laakiin ha ogolaan in lagu isticmaalo jeclaaw laakiin ha ogolaan in qalbigaaga la jebiyo aamin laakiin ha noqon qof fudud dhegayso dadka kale laakiin ha ogolaan in aad adigu codkaada weydo